Aroor wanaagsan daawadayaal dowladda Mareykanku waxay u aqoonsatay inuu ka dhacay xasuuq gudaha dalka Burma kaasoo ciidamada Burma ama Myanmar ay u geysteen dadka Muslimiinta ee Rohingya. Tani waa markii ugu horeysay oo dowlad reer galbeed ah ay ogolaato in Muslimiinta dalkaas loo geystay xasuuq. Muslimiinta Rohingyada ayaa waxay ka ahaayeen in ka badan 5% ka hor intii aan la xasuuqin. Aqoonsigan Mareykanku u aqoonsaday in la xasuuqay dadkaas ayaa waxa uu noqonayaa mid afka baarkiisa oo keliya, laakiin ma ay jirto tallaabo uu qorshaystay weli inuu ka qaado dalkaas. Ku dhawaaqidda inay u aqoonsatay in xasuuq ka dhacay dalkaas waxa ay ku soo beegantay xilli uu xogayaha arrimaha dibadda Mareykanku ka hadlayay xasuuqii loo geystay dagaalweynihii labaad ee adduunka dadka Yuhuudda ah. Kuwani waa xulka qaranka dalka Ukraine ku tartama doonyaha. Markii dalkooda dagaalku ka bilaabmay waxay ku sugnaayeen magaalada Antalya ee dalka Turkiga, halkaasoo ay qamti ugu dhacday. Ma jiraan dal ay leeyihiin oo ay maanta dib ugu noqon karaan. Tan iyo intii dagaalku socdayna waxay ku sugnaayeen magaalada Antalya. Waxa ku sugan dalka Turkiga dad Ukrainiyiin oo lagu qiyaasay 2500 oo dhammaantood u yimid dalxiis iyo ganacsiyo kala duwan ka hor intaanu bilaaban dagaalka ka dhacay dalkooda. Waxaana bilowday dagaalkii iyagoo weli ku sugan gudaha dalka Turkiga, kadibna waxay waayeen meel ay u baxaan. Telefishinka BBC-da oo ku booqday guryaha ay degan yihiin dadka reer Ukraine ayaa waxa uu kala kulmay sheekooyin midba mid kale ka cajiib badan tahay. Waxaana ka mid ah telefishinku dadkii uu wareystay haweeneydan oo lagu magacaabo Tatiana kana soo jeeda qoomiyadda Ruushka ee ku nool bariga Ukraine oo iyadu la yaaban qiilka waalida ee madaxweyne Putin uu ku soo weeraray dalkeeda isagoo sheegay inuu iyadu difaacayo. Sidoo kale waxay qoyskan sheegeen inay u yimaadeen dalxiis iyagoo ka yimi qayb carruurtooda ka mid ah, soona kaxaystay hal ilmo ah oo keliya. Waxayna sheegeen in kharashku uu ku yahay gabaabsi, ayna ka walwalayaan waxa ay ku sugan yihiin saaka carruurtoodii ku hartay gudaha dalka Ukraine. Waa mid ka mid ah dabeecadaha lagu yaqaan dagaalka. Dal walba oo adduunka ka mid ah waxaa jira maalin kasta dad u dhashay oo dalka ka maqan, haddii ay noqon lahaayeen ganacsato, arday iyo dalxiisayaal, kuwaasoo inta badan waaya si ay ugu noqdaan dalkooda markii uu burburo. Waxaaba adduunka lagu arkaa dad iyagoo ka maqan inta dalkoodii burburay 40 sano ama 50 sano aan dib ugu noqon.